السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواada channelkayga Munaas oo walaashiina Munaas xabteeda sayitiin fiicantiin waan salaam meel baad dunyada ku joogtiin kusoo dhawaada muuqaal cusub maanta muuqaalka ani wada waxa waay vloggeena isku diyaarinta ciida dharki ciida oo ilmaha usoo gadaayo iyo dhar aan shiin aan ka dalbado insha Allah arab inaan ila share gareey dharkeen ciida iyo waxyaalaha aan haysano haduu ilaahay yaraado hadii ay channelkayga ku cusub tahay kusoo dhawaanaysaa qalbi nadiif hadaa hore ila joogteen aadi aadan mahad celinaya labadan bil waa iska maqnaay because waxa waaye tahajjud prayers aadaha weenkii and then maxal lahaay ramadaanka quraan akhriis aan dhanino marka waxa waay taama waxa siinay ramadaanka taam siinay baad alxamdulillah waxa isku diyaarnooya ciida isku diyaarnooya moolka joogna meesha kabaha ka imaade waa aragteen hadda macaan la cabitaankan oo ilmaha u gadoona isla socona marka insha Allah ana unboxing isla suubinayna shiin dhar ciid ka dalbaday oo soone maxal la hadiidaha ilmaha aan siin doono ciida kaas waxa waay maxal la dhahay hadiyada u qaybiya ciid kasta marka ma sha Allah tabaarak waxa soo dhanaan ila share gareena aadi ina ka qaadatiin hadii aragtiin ina ilmihiina oo hadiyad asiisiin because that's very good waa ina ilmaha la hadiyeeyo maalinta ciida laga farxiino only lacag laakiin hadii wax ay furaayaan haduu la yiraahdo soo hadda waxaan la hooyaa maalinta kala waay shiin alaabta keenay iyo alaabtii moo ka soo gadnay iyo hadiyadihii kulli ay hal marnay wal furaaya aan wixii aan haysana ayaan tusaay insha Allah asxaabteeda hadda soo ujeedin ana waxa fureena shiin ana ka bilaabina koow alaabta orderkeena ana ciid ilmaha u dalbay insha Allah maxal laha mar horan dalbada cabaaro iga maqnaay soo hadda waa u imaada dharkooda ciida soo ana waxa aan subiyaa ilmaha dharka ciida saddex nooc aan tusaa saakooyinkooda anda nooci saddexda nooc ayaga dalbadan ay dhahan aniga noocaan jecelnahay noocaas la soo qaada ma fahanteen soo wax oo aan dooqeyle ma soo qabto because I like them inay wax choose gareysan karaan even though ilmo yar yihiin you have to let them inay choose gareystaan marka ma sha Allah labada waweyn ayaga choose gareysto soo gabadheeda kalena ana u choose gareeyo marka alxamdulillah inta waxa u jeedin giftiyaashi waxaan la giftiyaash kula dharka ciidi waxa san furaaya haduu la yiraahdo muuqaalkan haduu uu soo gaaray please like isaar iyo share gareey comment gareey intaas oo dhan wuxuu igu suurta gelinaysaa in aan muuqaalo qurux badan aan soo duubo oo in la share gareey insha Allah I will come back and videoyaal cusub waxaan soo dhigaya hadda ramadaanka anaga baxayo soo ciida u dabaldegeena soo hadda u jeedin qamiiskaanita Amira u dalbay okay qamiiskaan u dalbay Amir laba jooga oo soo gaday shalay ana daraadna markii oo moolka aadayna dhar kala soo gaday soo isla arkayna soo qamiiskan madowga okay salaad inuu ku aada rabaa I don't know we will see ana maxaa la camaamad yini soo haysta soo yar loo keenay still uu xiran karaa and then waxaan lahaay qamiiskan dhahay iyo waxaan dhahay asikabo inuu isku xiro marka ma sha Allah maxaa lahaay ana very beautiful way and then inta waxa waa saddex xab xijaaban aan dalbay gabarteeda u dalbay way soo xijaabkaanayta beige color waa cadays way midna waxa waa cad way midna black way soo marka maxaa la dhahay iida saakadeeda ciida oo kula xiran kartaa soo iida saakada ciidna waa u soo gaday because saakada ciid markii moolka aadna ee dhaal saakadana rabaa laakiin dharka oo ciida oo walaalaheedan isku nooc yihiin okay saddexdaba isku noocan ka dhigay laakiin since ay ku dhigtay saakadaas ee hore loo soo wala qaaday ma fahanteen marka ma sha Allah tabarakallah labadan bariyan ku dhaay tahajjud prayers la aado ayaan ku dhaaya wajiga waa laga caatoobay alxamdulillah ilaahay noo fududeeyo waxa waayino maxalla waa kasoo noqonay hadda salaada kasoo noqday tahajjudka waa kasoo noqonay hurda ma jirta ilmaha iskuulka la geena marka waxa waa alxamdulillah marka hadda inta xijaabkii kala waay marka gabadheeda iyada xijaab iskuulkan xijaab u qaata xijaabada saan oo kale wuxuu ku fiican yihiin gacmaha lagu dhaqaaya and then ilmahana ku asturan yihiin marka ana maxal lahay intan waxa aan ku hayaa gibsaaran ku hayaa ma sha Allah tabarakallah hayaa xijaabada ana undercapka because ana aad kuwan u jeclahay wili bashiin markii oo tinta taaq ku xiro mujadid gadaal ku xiro xijaabkaaga saarnaysa aad u fiican yihiin waxa soo qabsaday ayagana saddex xab soo qabtay saddex xab xijaab soo qabtay xijaabaday gabadheeda waxa waay waa weynaati soo xijaabada ila qaadata okay soo marka maxaa la dhahaa iyada qaar u dalbay kuwan saa hadda ugu weyn ana amal waay iyada qaar u dalbay because maxaa la waxaan dhaabay macana xijaabada iyo dhaafan dhahay soo xijaabada iyada qaar iskale actually saddex xab dhan iyada iskale ana laba madow leen kale yahay ana madowga aad u jeclahay soo kan iyada dalbatay noocyadaan jeceshay ana xijaabada noocyadaan ma jeclaarano waay soo kan iyada u dalbay ma sha Allah madow waay
so maxaa la dhahay and then brown because waxay haysataa cabaayada brown haysataa marka kuwaaneed xijaab waa xijaabka madowga hadda furaa camal leh waa ma furin and then kan waxa waay kan hadda balaaga aan furaa brown kiisa waay so brown kan aaday ugu heshay so iyada u dalbay ahead so marka waxaan since ay dhahada xijaabo weyn ka rabaa aan waxaan dhahay okay oo ku dalbaan dhahay you don't have to like ani la ila xirato maahan so moor kala badan u dalbaaya so marka ma sha Allah maxaa xijaabka marka u dalbo ka saxaa marka gabar qabtid oo wax kula shar gareynayso dharkaaga dhan waa waanaysa isbarar ina waxooda dhan u soo gadid so hal meel ay dhigtaan binka qaar iyada iskala qaarna ana la wax kasta kala gooni waadi kala waxa binki eber xijaabiyaasha eber markaas ma ka bixi karmaano marka ma sha Allah xijaabkan inta cad waaya iyada la u dalbay so waxa u dalbay madow cad iyo black so Amira soo haray Amir moolka aadna ahead moolka kuwaanayta maxaa lahay aan ugu soo qabtay ana I don't know I'm thinking about it I'm thinking suit korto ana maxaa lahay tag waa ka bixinaan ma jecel in ma taag wataan ana maxaa lahay kabo madow uu soo qabtay dukaanka aan joognay kabaha Nike shoes loo soo qabtay I love Nike shoes so balaagan oo soo qabanay because size ko kala nooc kala ka hela Jordan but laakiin ma haynin size kiisa and then this is so beautiful so markuu xaraw ma taqaaniin qamiiskiisa iyo kabaha saa isku qaadan karaa okay very beautiful way wuxuu haystaa camaamad oo madow iyo cad isku dhex jiro hadii kala maxaa lahay ana bahalkan shaatiga kan hadda oo kan joogan hadda aniitu soo ahaayo iyo wuxuu isku qaadan karaa kabihiisa bixiisa so laba joog waay gabdhahan waxay qaastaan labada yiriska laba joog haystaan gabdhaha kalena hal joog haystaan because last time ayaga laba joog soo gada wiil dhar saakooyin cusub u yaalo so marka ma sha Allah and then that's bacdaas Amir waay so bacdaanayta waxa waay moolka ayagana waxa aan ka soo gaday aan hadii aragtid meesha kaba laga hela the children place ka moolka ku dhex yaala aad u fiican yihiin kabaha madowgana soo qabanay because ayaga saakooyinkooda madow waay so very beautiful way okay saakooyinkooda madow way and then madow soo qabanay ma sha Allah beautiful I like it gabadheeda caada u soo qabtay because saakadeeda ana saakada gabdhaha madowgan waa la qaadanaysaa ee goldiga laakiin ana saakadana ku dhagtay saakada markii ay ku dhagtay beige way iyo cadaan cadays camal way mahna marka waxaan dhahay waxay wadataa kanay wadataa so hadii ay xirnaysa saakada kawacada oo soo qaado so waxay u badan tahay inay saakada xirnaysa iyada because taas ay gashay okay so marka ma sha Allah maalinta labaad ciid xirnaysa saana dharka kale oo walaalaheed isku nooc yihiin marka ma sha Allah tabarakallah saas waay I don't know xijaabka figis greenooya wala si tahajud ugu imaado videoga markin duwaay oo ujeedinay dhayga dhan godgodan ku oh my god alhamdulillah and then maxaa lahaa hadda u xareetan hadda waxa waay gabadheeda oo 4 sano jirto waay okay so kan shaati ana gacmo dheer kan waa soo qaaday because xijaab oo xiro yaani I don't know so hadii xijaab u xiro aan maxaan jeclaa in ma hadii xijaab u xiro wax gacmo dheer jeclaa ma jecel wax gacmo gaaban and then maxaa lahaa because cunuga markii uu xijaabku u xiris waxa present green oo inuu cunuga asdan asturan yahay so waa arkeena ina oo like jaakada oo gaaban inta loo xiraa mise kan dheer loo xiraa like was soo qaaday in case I change green in my mind so that's mashallah and then that is either iskale bacdaan iyada leh nin walba xiis gooni waa Amir gooni waay iid gooni waay marka ma sha Allah tabarakallah and then intan waxa aan ku hayaa maxaa waay gabdhaha kabayaashooda waxooda waay so gabdhaha waxooda inta kullu guridaa kuwan safo ana xijaabiyaasheeda waay saddex xijaab madow cad isha cadays waay so ma sha Allah iidan inta ugu ridaaya so marka waxa ma taqaana tartiib waay so that's so cute like simple dar ciid waay so beautiful and then anna cabaayad leh ku ciidaya cabaayad normal because wax kale oo nuuray ma arkin cabaayad leh ku ciidara marka ma sha Allah tabarakallah so ujeedin horta muhiimad waxa waa ina ilmaheena soo fiican ugu ciidaan ma sha Allah tabarakallah so gabdhaha kale dharkaana draaskana oo soo gad draaskana inta mufuraay laakiin saan isku soo baxa okay mufura dresskan laakiin waxa arkaysin habeenka ciid ciid waa markay lahay video niga soo duuba ana habeenka u diyaarnaa dharkooda hadii aan la duulay yiraahdo waxa dhan oo video ni soo duubaya duulay yiraahdo so maakaas labada gabar weynka saddexdooda isku nooc waa daraasyaasho so kabahooda daraasyaashooda waxa dhan isku nooc ahaayeen so kuwaanayta koobabkan waxaanayta waxa fiirnaa magaca uu ku qoran yahay laakiin kuwan giftiyaasha waa giftiyaasha wili manila shargareynaa suuqa wax yar dharka maxal lahaay dhameynina horta laakiin kuwan waxa u fiirnaa waxa waay magacayaa ku qornay magacyada in qofka uu ku qoran yahay fiirnay so hadda marka ma sha Allah tabarakallah
maxaa lahaay ana xaga iska dhigay waa ku fikiri kuwaas because saddex xabaan dalbe hal xaba laga soo jibiyay so I was like oh my god what's going on so saakada kale waa kana waa u jeedin so saddex saaka aad dalbe ahayd saddexda saako ma sha Allah qurux gabdha ayaga keenan wala ayaga dalbadaan waxay dhan kuwan arnaa soo dalbi leh so marka ma sha Allah saanu egihiin okay mujeedino quruxdaas amaana gold iyo black waa ayaga black yaraban ku xirtaan so marka ma sha Allah tabarakallah maxaa la daadse أنا وانا نلتوسا هبينك عيد بيروان اللهاي right now سانو أركيسين so ساكا black и gold سكو جيرو واي سدح حبا واي سدح دا قبرا وطالق عليه هيد مركا ما شاء الله تبارك الله إي كبهودا مدوغو iyo xijaabkooda ma sha Allah because ay xijaab xirtaan so hadii tima xataa loo soo foonay so marka routiinkan waxa soconaa isku diyaarinta ciida cilaanka la imaalo soo saara tima loo soo foonayna waxa soo dhan wasla soconaa guri nadaafada gurina daahka badal waxa soo dhan so alxamdulillah biskudkay wixii waa suubsaday but laakiin intaas min qaybsan because shaqo badan waa baa mani sheega tawar mahay tahajud markii aad ilmu iskuul soo wada wajigiisan la iga soo haray tawrtaas ma ku jiriyaan ka wada marka ma sha Allah tabarakallah had soo jeedin oo waxaan lahaay ana alxamdulillah and then kulligood markii saas iskugu soo bixi had marka waxaan dalbi ahayd saddex xabaad waxaa dalbi oo kuwa madaxa so laba xaba gabadheeda hal xaba ana waa haysta qaar laakiin iidana oo dalbi because sidii oo haduu ka dhama ana qaar haayo marka ma sha Allah tabarakallah kuwaas saasay noogu dhamaadeen asxaabteeda hadda qaybtaaneed waxa waa u jeedin hair capki madaxa xijaabada lagu xirto waxaan shiina ka soo dalbay ma sha Allah raqiisna waa xijaabada ilmaha xijaabada oo dadka weyn waxa soo dhan ma sha Allah the only thing amolkeena aan ka raadsad waxay aad kabooyinka iyo waxyaalahaas leebes because ana maxal lahay online ka eega fudud so marka ma sha Allah waana dhar yar oo iska qiimo fiican oo like ilmaha ku ciidi kara oo dhibkiisan oo badneen so marka ma sha Allah tabarakallah soo jeedin ilmaha dharkooda intaas waay haduu la yiraahdo so hadda waxaan kala xareenaya xijaabadii wixii gabdhaha ugu xareena meeshooda labada weyn hal meel aan ugu dhigaya so ma isku qasayaan ku boxyaasha kuwa weyn hal meel kuwa yiriiskana law meel ka leeyihiin habeenkii ciid biro waa habeenka dhan waxa la diyaarna subaxii waxa la kacaado ilaa nabad noo gaarsi shantii oo subaxnimo kacana because sidii oo salaada subaxdii aan u gaarno 8 anina waa diyaarna markan ku dhan waqti badan qaadna soo ciyo iska baxa iska kacna marka ma sha Allah tabarakallah alaabtaas had markan kala aruuriyay waxa araba insha Allah qaybta kale inaan la qaybsado oo maxallaha ana laba xaba cabaayad iyo xijaab ku darsaday okay aan ku darsaday cabaadan xijaabka aan waxaan ugu talgalay tan ku ciiday ma ahan ana maxallaha laakiin waxaan ugu talgalay head what is it called أنا ما أنت الواد عيد عمل إما مال مكل جيجينا وحسيت عمل إن إسكاقة وطلقلي شينا قدل بهاد عباد آد وقروح بدنتهاي لكن حجاب كذا علاس وأنا حجاب علاس كم جعلي I don't know why أوكي عبايدان أو شبال كان كهل مع الحجاب كذا هرت حجاب قويني هاي وأستورني هاي وون علوسيات انت هذا الملاركاي لكن حجاب وين كحكونا عم تقانا مركي أو أحسن عمل أو حرنا لهدت like they're very heavy you can see but it's not bad okay it's not bad I can put pin and then like so I can عبايد ميا I don't know I think it's عبايد or sako I don't know وحيتها يا سان وجعما سانة كتاي so كانوا حاروا أنا حرته ما أنت لو العيد عمل المام كمال أوجينا because مالن جايا we don't just stay home the first day of عيد حواي أنا قاعد عزومنا جروجنا نوريمانا ولا باشا في مكنا نوريمانا دولنا نجارتيو so ما أنت لو تحامل كان إنهي بنان كوضع because ما أنت كود جروجي جوجين ما أنت لوات بنان كان جايا وسعي رسيا ما أنت صدقت سيدو كله أيقا تعمل خاطة so مرك ما شاء الله تبارك الله and then that's it so ujeedin quruxda adduunka ma hano so kaasaan ku dhahayaa ana ko iska baashaal wana alxamdulillah ilaa noo ziyaadiyo asxaabe and then waxaan dhahoyaa baakan waayo very thick u yahay I feel like laba maro oo isku tala waa zaid u adeeg u yahay oo ku culus yahay so I was like what's going on but like it's okay وقروح بدنيا أنا هنتي واقع هلا والله أنا واسكو جميع عبايد ما شاء الله beautiful okay I don't know dress me عبايد I don't know لكن واسكو جميع هذا حياتها ما شاء الله عندنا وانا كهلا كلر black brown beautiful skin كيجا marka ma sha Allah xijaabka waan dalbaday xijaabka aaneeto ma ogi xitaa ina cabaayadaan hadda oo niitus ina la qaadan kara laakiin asi waa jecla aad uga helaa aan waxaan jeclaa xijaabada saan camal oo like oo too heavy ahaan oo qoorteeda ku xiriin oo culays dareemayna jeclahay soo kan
بعد meelan ka furaa balaahay I don't know what's going on waxaan rajaynayaa asxaabtayda videoga inaa ku caajisin insha Allah ii dheeraad waa videoga waa dheer yahay ii like garee ii share garee ii subscribe garee hadii la yiraahdo so look at this one isn't that so beautiful masha Allah tabarakallah yeah kana soo dalbaday kan masha Allah I love it the color even though mugdi iga dhigo I love it okay so marka maxaan lahay ana don't mind indhahayga oo mugdiga labadan bir waxa igu kacsan sanboor indhaas oo hoqay waa daali kaniin soo caway waa daali bad laakiin maxasuubina alxamdulillah so waxaan dhahay how so ekaado qatar ma ekaadaan dhahay so anyways I love this color so I don't know ina cabaydas kula qaadan kar bad laakiin kana soo dalbaday ana maxaan lahay ma sha Allah tabarakallah saaidna qaalim waxa shiina ka dalbaday so marka asxaabay muuqaalku dheeraanaya like isar please share garee subscribe garee comment garee ana wana cabaar maqnaa laakiin waxa walaashiina waxa taamsiinay maxaan lahay ramadaanka taamsiina wala isku wadi karaan routine la duuba iyo anfur la karnaa iyo ramadaan iyo salaad iyo quraan isku wadi kari so marka ma sha Allah hadda qaybta waxa la soo gaari giftiga okay ani ilmahayga horta hal qof giftiga hore Amiro ina gift u soo qabto wal marketka u soo qabanaya but laakiin giftiga gabdhaha u soo qabtay hadda ma sha Allah giftiga waxa horta ina gift box soo gado waay gabdhaha giftiga waxay jecel yihiin makeup ki waxa ay jecel yihiin so marka waxa u soo qabtay set oo makeup labada yiriska kanay doorteen makeup-ka eyelash waxa seeta interest garayaan so giftigan qatar waa aad u fiican yamahana so waxa suubinaa gift bag okay so gada waa ku dhaxridaa oo soo waxa suubinaya gift bag ana waxa haystaa bagaal waxa haystaa oo Ramadaan mubaarak dhaha ciid mubaarak dhahay ayaga waxa ku ridaa candy chips waxa soo ugu dhaxridaa waa arkaysiin adinka saa suubin doono okay so marka ma sha Allah intan waxa waay caagan 3 xabaan dalbay 3 xabo hala soo jabay so it's okay next time si wax ka dalbanaa aan ka dalbi doona laakiin inta waxa waay gabadheeda magaceeda ku qoran baageeda giftiga loogu daray loogu dhaxridaya safa ku qoran waa soo waxa cuniga magaciisa ku qoran I love that it's just what so jibin ma ogi kii kala very beautiful why so cuniga magaciisa ku qoran isku ku qaadan karaan waxay rabaan safa ku qoran kan pinkiga and then the other one atwa asagana gabadheeda ku qoran magaceeda Zainab ku qoran so this is beautiful gift why ilmaha lacag waxa siinaya abtiyaashooda habrartooda lacag siinayaan okay iyo maxalla xaajiga waxa soo dhan laakiin I love it gift ay furayaan subaxda salaada markay ku soo noqdo ay giftiga ay furaan so gift ay furayaan oo wajigooda farxad aan arkaayo aad u jeclahay marka ma sha Allah tabarakallah maxalla dhahay ana this is so beautiful mahana qurux maana magaceeda ku qoran soo xabadan iga jaw markii wax dalbanayeen aan soo gada qasab because had wax kale marka dalbano halkan waxna mu order gareyn kari so wax kale uu soo bedela qofka uu ka jaw kaas wax kale uu soo bedel rawaado la yaraado so marka ma sha Allah tabarakallah inta waxa ugu haya gift kala haya oo qof uu talgalay okay ana afaaran carafta inna caadi maahan so asagna waa kaas marka ma sha Allah tabarakallah marka waxa asxaabay muuqaalkani wuxuu ahaa Ramadaan min ciid isku diyaarinta giftiyaasha ilmaha uu talgalay ilmaha gift u diyaariyay ee furaan oo only lacag ana saasan dhilahay and also na dharkoo ciid ilmaha waxa seeta hadii muuqaalka akeeshay ama uu ku dhiirigeliyay like isar subscribe garay share garay comment garay muuqaal kala soo socdaan isku diyaarinayo soo muuqaalkan ma muuqaalkiisa kale inta isku kulmeeno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaantiin baa fi amaan Allah bye bye